بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي زاهد رسول ملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. واسكو إفن اللي اسكو إفنايا عشر ير oo ahaa lahjadaha Soomaalida ay ku hadasho iyo lahjadii ugu horeysay ee Soomaalo idil ay ku wada hadli jireen. waa horaan u soo sheegnay casharo horaan ku bixinay lahjadii ugu horeysay ee Soomaalo idil ay ku wada hadli jirtay waxay ahayd lahjada Mayga ay ahayd. in badan ayaan maartay ka dhaadhici karin. waxaan ka hadlaynaa waa xilligii Alayhi Salaam Nabi Ciisa Alayhi Salaam xilligiisa ka hor way waxaan ka hadlaynaa. marka kolba ka dambeysay xilliyada wax walba way bedelmaan, dhan rug baa ku dhaca, wax walba tagayur ayaa ku dhaca, magacyada ashyaada xataa dadka tagayur baa ku dhaca. birigaad yareed iyo maanta isku kiimayhid oo waxaad ka tagayur baa kugu dhaca, isbedel baa kugu dhacay. bimacna sidaas la mid ah lahjadaha ama luqad kasta oo xataa adduunka ka jirto isbedel baa ku dhaco, way bedelmaan. berigii yani ka soo qaad matalan lixdamaadkii iyo maanta oo sanadihii 2000 aan ku jirno, 2022 aan joogno, yani isku qaab loogama hadlo. matalan qaabo badan, ereyo badan, erebixino badan, matalan terminology oo noocyaal kale ayaa soo wada baxay xataa af Soomaaliga. wax badan oo hadda aynaan garanaynin. matalan markaan kasoo bilowno 80maadkii, markaan kasoo bilowno ereyo waxaa kasoo baxay koonfurta oo nooc kale ah. yani hebel qofkan marka la leeyahay ama xoolo marka la rabo in la sheego oo la yiraahdo xoolahan waa xoolo oo weyd ama ah caata ah. waxaa soo baxday dhanka koonfurta Soomaaliya erey la yiraahdo khaliir. neefkan khaliir waaye iyo hebel waa khaliir. waa ereyada marka sidaas ay u soo baxaan generationada cusub, dhalinyarada ayay la soo baxaan. haddaba jiilba jiilka ka dambeeyo wax walba way bedelmayaan. xilligii Nabilaahi Ciise ka hor ilaa maalinka maanta wax badan baa bedelmaya. balse oo lahjadii ugu weyneed ee Soomaalo idilkooda hadli jirtay waxay ahayd lahjada Mayga. matalan markaad tagtid cafarta aad tagtid ama cafarta aad aragtaan, aad sheekaysataan, ama marka maxaad doonaysaa halkuu maxaa fadhahaa ayuu ku leeyahay. maxaad doonaysaa weeyaan maxaa fadhahaa waxaa u dhow marka dhawaaq ahaan may fadaasi, maxaa fadhaa may fadaasi ayaa u dhow oo looga hadlo lahjada lagu hadla bakool iyo baay looga hadla ah. marka lahjadaha waa lahjada ugu weyn hore qabso. lahjado kale oo ka duwan way jiraan. matalan markaad timaado gobolka Shabeellaha Hoose halka la yiraahdo Soomaaliya ku taalla, waxaad arkaysaa lahjad qowmiyad ka mid ah qowmiyadaha degan halkaa dega iska leh. qowmiyad ka mid ah ee degan aan iraahde waxa weeyaan waxaa la yiraahdaa matalan maxaad doonaysaa, waxa weeyaan maba fahmi kartid. wuxuu ku leeyahay gaami jamaasti waxba ma doonayo. kolka aad doonaysa inaad tirahdin urub jabnu miiri, waxba ma doonayo aniga urub jabnu miiri, gaami jamaasti urub jabnu miiri. salaantooda marka way ka duwan tahay lahjadaha xataa ama may ama maxaa tiri lahjadaha loo yaqaana way ka duwan tahay. waxa weeyaan nebi uma dheefto waa salaan weeyaan. marka waxaa la yidhahdaa marka nimankaasi waxay isku dhadhow yihiin ama ay walaala yihiinba. nimanka la yidhaahdo Booran Cali, waa booranta nimanka loo yaqaano. Booran Cali iyo Jiida Cali waxa weeye dad islah weeyaan. xataa baarentu marka lagu daro waxa weeyaan dad hadhowdii isku imaanaya, isir ahaan iskugu imaanaya. balse kuwani way Soomaaliyoobeen oo halkaas bay Soomaali ku yihiin. cidina maartay kama saari karto. sidii taariikhdii aan kasoo sheekayn waaba Soomaali. kuwan marka way noo xigaano waa isku DNA baynu nahay. bacdima oromada iyo cafarta iyo innagaba aan isku DNA aynu noqonay. kadalika ayagana way kamid yihiin oo DNA-goodu waa la mid, waa DNA-ga Soomaalida. marka Soomaalinimada cidina kama saari karto. lahjadaha marka haddaba raadadkoodii uu bedelmaa
waa wuu dhalan rog baa ku dhaca taqayur wax la yidhaahdaa ku dhaca taqayurkaasoo keena xilliga keena iyo da-da markaasi timaada oo ilaahay abuuray oo weynaata waxbaa isbedela sida matalan waanagii kasoo sheekaynay casharadii hore kusoo qaadanay ee ahaa matalan guntinada halka laga xidho oo xagga dambe ah oo garabka ku aadan gadaal ah gadaal xidh baa la oran jiray berigii hore sidii waktiga u socday gadh xidh buu kusoo koobmay hadda gadh la xidhaya ma jira maogtahay waxa weeyaan taqayurkii ku dhacay ayay maaragtay intaasi baa kusoo hartay gadh xidhkaabaa kusoo haray marka sidaas lamida ereyada af soomaaliga ah laftigoodu oo caadiga ah ee magaciisa maxaatiri lahjada maxaatirida ah ayaaba bedelanta wax badan baa isbedela sida anaga hadda ereygii aan soo sheegayna qaliir oo kale aan lahayn iyo oo caatada iyo weydka ay u isticmaalaan iminka meelaha milyowga qaarkood waxyaalo badan way bedelmaan marka waxaa kaloo jirta marka haddaba lahjad ka duwan lahjadahaasi kale oo ka duwan laakiin waa dad soomaaliyeed soomaali ah markaad tegtid koonfurta soomaaliya jubbooyinka weliba jubbada hoose markaad tegtid eriyada weliba eriyada jiliba ka bilow jubbada dhexeba ka bilow laakiin waxaad ugu tegaysaa jubbada dhexe halka la yidhaahdo oo jilib qaabilsan jilib ka tirsan heleshiid iyo malende iyo fakiya iyo jiija meelo la yidhahdo waa tuulooyin waxa aan tirinayo tanzania tuulo la yidhaahdana way jirtaa oo isla eriyadaas ah iyo faanoole waa tuuladii loogu magacdaray mashruucii ballaarnaa ee faanoole loogu magacdaray kasoo tag marka waxaa timaadaa eriyadan mugambo eriyadeeda imow iyo makalango iyo dhulka la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa manamofo iyo waxaad tagtaa halka la yidhaahdo kamtiri kamtanda waxaad arkaysaa lahjad kale oo ka duwan tii lahjadii maxaatirigana way kula wataan lahjad isku qasan oo maay iyo maxaatiri oo la isku milay oo way wataan way ku hadlayaan haddana lahjad kale u qaasa ayaa jirto oo matalan salaantoodu kale matalan onganafi fayanani yani waa salaan marka lama oran karo ciddiiba aanan ku hadlin lahjadii aad garanaysa adiga aad taqaani soomaali ma ahan ma odhan kartid waa soomaali isla shabeellaha hoose usoo laabo waxaad arkaysaa gobolka shabeellaha hoose degmada la yidhaahdo baraawe la yidhaahdo waxaad ugu tegaysaa lahjad kale aad ugu tegaysaa oo u qaasa ayaga leh iyo lahjad oo maay iyo maxaatiri oo kale ah oo isku milan oo laakiin qaabkii ka duwan laakiin waa af soomaali fasiixa aad fahmi kartid haddii aad dhegaysatid oo samir aad ku dhegaysatid soomaalida inta badan dhegaysiga samirkiisa waxa weeyaan samir wax walba inaad samir u yeelatid ayaa wanaagsan aad dhegaysatid ereyga kolka laba goor lagugu soo celiyo mar saddexaadka waad garan wax weyn maaha lahjada tan u gaarka marka waxa weeyaan mid ayaga deegaan ahaan u qaasa macnaha waa salaantooda khabaariso waxay u dhowdahay sawaaxilin uu u dhow yahay mana aha hadda masana sawaaxili ma aha khabaariso amnagani amani maxaa la yidhaahdaa keni rabini xaggee doonaysaa xaggee u socotaa bimacnaa narsukhini waxaan doonayaa ama waxaan u socdaa suuqa namaskitini waxaan u socdaa masaajidkii waxa weeyaan lahjadaha noocaas way jiraan waa soomaali marka ma ahan mar kalena aan ku celiyo ciddii aanan lahjadaada aanan ku hadlin soomaali ma ahan ma odhan kartid haddaba soomaali ma gogoynaa ma intaan haddana ma kasii yaraynaa ma sii qaqaybinaa may sababaano lama qaybin karo intaan baaba khatiyaan ka taagannahay oo dhowr dowladood oo caalan gooni ah shidan laakiin nasiib waxaan ku leenaha waa nidaam federaalism ah oo maaragtay dunidaba ka jira waa nidaam la garanaya aan u soo laabtay marka lahjadaha lahjadan mayga marka inay aada u facaweyn tahay waxaa jirtay berigii 4 iyo 7 waxaa jiray allahu naxariistay wasiirkii waxbarashada ee soomaaliya mudane gahaydh ayaa la oran jiray allah raxma shil gaadhi buu ku dhintay uu ku geeriyooday wuxuu sameeyey wax aynan samaynin wasiiradii ka horeeyey walaa kuwii ka dambeeyey
muxuu sameeyey dugsi waliba wuxuu geeyey laab waxa la yidhahda laboratory waxa la yidhahda ayuu geeyey dugsi waliba wuxuu geeyey qalabkiisii waxbarashada oo u dhammaystiran ama ha ahaado kii chemistryga ama kii physicska ama kii mathematicska xisaabta lagu sameynayay ama geometriga dhismaha wax walba wixii oo u dhammaystiran ayuu sameeyey maca jaamacadihii sidoo kale sidaasi lamida af soomaaligii baa la qoro kolkaabaa waxaa la sameeyey manhajkii in lagu bedelo af soomaali haddaba maadooyinka cilmiga ah waxaa la waayey terminology erebixino oo ku beegan ku jirta lahjada maxaatiriga ayaa laga waayey sida karaarkii cuf isjiidadkii xawligii waxyaalahaas oo idil waxaa laga helay lahjada maayga ayaa laga dhex helay oo ilaa iminkana lagu shaqeeyo oo ku socoto ama dugsiyada ha laga dhigo ama jaamacadaha ha laga dhigo ama injineerada ha isticmaalaan ama meel kasta waa lagu isticmaala oo maanta ay soomaali ay leedahay xawli iyo karaar iyo cuf iyo cuf isjiidadkii wixii oo idil waxa weeyaan waxaa laga dhex helay lahjada maayga ayaa laga dhex helay sidaasi lamid waxaa lahjadaasi laga dhex helay ereyadii loo isticmaali jiray chemistryga loo isticmaali jiray yaa laga dhex helay marka ma ahan lahjad aada u yar maa lahjad waxwey aada u facweyn waa lahjad maaragtay af soomaali saafi ah waayo meelaha markaad ku hadashid lahjada maxaatiriga waxa weeye ama ingiriis baa kaa soo gelaya ama carabi baa soo gelaya ama faransiis baa kaa soo gelaya ama xabashiyaaba soo gelaya waxa weeyaan waxaa jira weye aan qabno haddaba soomaaliy maxaa inala gudboon waxay nala gudboon innaga owlba waanu wada nooleen waynu soomaali oo dad walaala aynu ahayno sidayni baanu ku ahaanaynaa iminka waxaan la istakoorahaya waa in la joojiyaa oo maaragtay lahjadaha laysku ixtiraamaa oo lahjad kasta ixtiraamka ay leedahay ama mudnaanta ay leedahay waa in la siiyaa sida matalan lahjada maayga waxaa jirtay beri hore in cashri noocan aan ka hadlay dad baa soo qoray oo weydiiyey macalin markaa maayga aada buunbuuninaysid ma adaa ka soo jeeda horta maayga waa dad soomaaliyeed dad geese le maahana ogow marka waxa weeyaan su-aasha weydiintii waan ugu jawaabay waxaan idhi kama soo jeeda laakiin waxaan sheegaya waa wax xaq ah ee jira cidina aana dabooli karin indhahana laga daboolan karin idinkana inaad barataan ee waajib inagu tahay oo inaan idiin barno waayo waxaan u joognaaba waa macalinimo iyo dad inaan wax barno dadkaan wax baraynaa ka mid taho waxaan baaris baa lagu sameeyey beri hore waa la soo baaray haddii markaas inankii baan u jawaabayaa moogta waxaan idhi baar gaalle macnaheeda ma garanaysaa waa lahjada maaygaan idhi waa beerkii geela gaalkacyo ma garanaysaa baan idhi maya oo ma garanayo yidhi macnaheed armaad garanaysaa maya waan u sheegay waa halkii geela uu ka kacay marka calaa ayati xaal soomaali waa soomaali waxaan kusoo koobaynaa casharkan haddii alla yidhaah intaas ayaan kusoo koobaynaa casharadeenii kale way noo socdaan ogow ma aysan istaagin oo taariikhdii hore ah nabiyullaahi ciise ka hor calayhi salaam iyo taariikh kaloo aan bilownay oo iyadana noo socon doonta oo ah isirka soomaalida oo aan ka soo sheegaynay isirka soomaalida iminkana in yar aan idiin siiyo maxaa la yidhaahdaa tusaale ahaan soomaali waxa weeyaan 7 wiil weeyaan 7da wiil waan faahfaahin doonaa haddii aan la yidhaahdo waa oor-aamka baa ka mid ah waxaa ka mid ah danagale oor-aamka waa ninka hadda ooromada aada u garanaysa adiga waxaa ka mid ah danagale waxaa ka mid ah duudse waa ninka aada iminka u taqaanid huutu tuutsiga aada u taqaanid weeyaan waa danagale oor-aan tuutsi waa duudse baa la yidhaahdaa iyo ninka la yidhahdo jaante iyo ninka la yidhaahdo qabadle labada nina soo hartay ma garanaysaa waxaa weeye so'maal iyo daar owd weeyaan 7daa wiil weeyaan taariikhdooda insha allah way noo soo socotaa haddii alla yidhaah intaa iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh